بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وناكسن إذ الأهانتين بقى ددوينها يجا صوماليات آذك أنو جعلنا هل كان نقد دعونا يسوى عباسة channel هذه يشير نقول حدنا هذا مرتي شاكو مددالو آد معقولة أو منقلة أيد نجيه اللي دونتان ما أنت واحد ربع إن أن كهذلنا أفر إيو تبان كفيبروري الدنيا دو أي ما أنت اسكو راعي وما أنت جعل كأدون كلليه هاي maalintaasi waxaynu kala qaadi doonaa afar qaybood inaynu ka hadalno afarta qaybood waxaa ka mid ah ninkan loogu magac daray ee la xusayo kow jacaylka laftiisa oo aan rabo inaynu dul marno calaamadan loofka ee maanta loofka loo adeegsado ee qaabka u samaysan iyada lafteeda inaynu ka hadalno saddex afar aan idhaahdo maalinta lafteeda waxa ay tahay maalintu intaasi ayaan jecelahay in aynu ka warrano aan ku bilaaba Valentine Day baa lidhi Saint Valentine Day waa ninka loogu magac daray maalintan magaciisa Saint Valentine Day waxa uu ahaa baadari kristana oo masiixiya ayuu ahaa ninkaasi oo waxyaabo waaliya u dhintay marka maanta halka aan ninkaasi ka hadlayo waxa 100,000 oo jeer iga fiicneyd in aan ka hadlo maanta way tollaay waxa iga fiicneed maanta inaan ka hadlo cilmi Bordery Day inaan ka hadlo ayaa maanta ka fiicneed inaan ka hadlo Valentine Day marka maanta Soomaaliya halkaynu ka xusayno Valentine Day inaynu ka xusno ayaa inooga qurux badnayd Bordery Day oo taariikhda maalinta Bordery Day xuskeegu ku beegan tahay in maalintaasi aad xustaan kana wada qayb qaadataan ayaa runtii iga qurux badnayd qodobka runtii aan inta ku soo dhaafo laba jacaylkan maanta la xusaya muxuu yahay ba isweydiin leh jacayl nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam asxaabtii rasuulku u yimaadeen waxay ku yiraahdeen jacaylku waa maxay nabi allow nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu ugu jawaabay alxubbu bacda zawaaj jacaylku waa guurka kadib jacaylkaasi uu nabi maxamed sheegay calayhi salaatu wasalaam waa jacaylka rasmiga ah ee runta ah ee maguurtada ah jacaylkan loo dabaaldegayaana waa jacaylka guurka ka horeeya ee huuhaada iyo ku salaysan waalida xigmad Soomaaliyeed baa waxay oran jirtay kalgacaylku waa qani caashaqa ka qaraweyn kalgacalku waa qani caashaqa ka qaraweyn kalgacalku waxa weeyaan jacaylka aad jeceshahay hooyada caruurta aad dhashay ama ilmahaaga aabaha hooyada waalidkaaga dadka ehelkaaga jacaylka aad jeceshahay baa waxa la dhahaa ama la yiraahdaa kalgacal qofka aan meher iyo wax isku keen haya aanu jirin na waxa loo yaqaanaa jacayl ama cishqi hadaba ka uu nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam oo alhubbu ba'da zawaaj ilaahayna aayad quraan ku dhig mawadatan wa rahma baa ilaahay dhexdhiga waa jacaylka rasmiga ah runta laakiinse kan maanta la xusayo ee maanta loo dabaaldegaya waa jacayl aan ku jirin sharcina aan ahayn meherna aanu labadii qof isku haynin runtii kaasi muran badan buu leeyahay horta wax jira ma yahay mise wax jira maaha ayaa lagu murmaa haddaba murankaasi inaga oo yartix raacayna Soomaalida suugaanteeda muran badan baa aad uga dhacay suugaanta hees baa waxay tiraahdaa uu hadraawi sameeyay hal abuurkeyga midhaheega lahaa jacayl dhiig ma lagu qoray wali dhuux ma loo shubay qofna saanta dhabarkiyo sii dhamaystira idinku mid kale wuxuu yiri ur jacayl gala amadaaye ur u jacayl galo iyo taa iyo xanuun yacnihi waa xanuun buu ku leeyahay iyo jiro ur jacayl galaad amadaaye mid kale wuxuu yiri inan kale waxay tiri haddii aan jacayl jirin jar lama ahaadeen haddii aan jacayl jirin jagi lama ciyaareen taasina waa jagidii bay ka waramaysaa hees kale ayadna waxay tidhahdaa wagaray adduunyadan jacayl wabax ma noqonine wagaray adduunyadan jacayl wabax waa xooluhu ama shaygu markuu dhergo neefku markuu dhergo weligeed jacayl wabax ma noqdoba waa taa la xusayo waa taa lagu dawaqsayo wuu jiraa ma jiro kaynu ka warramaynaana waa kaaya sidaa ii fahansanaada weligeed wagaray adduunyada jacayl wabax ma noqonine wagla ugala ma jeede wiilan dhalay ma siista kaasina halkaas la maray
markaa jacaylkii horta wax khilaaf uu ka taagan yahay weeyaan, ama cishqigii. kama hadlayna kalgacal ka rabbi iyo rasuulba sheegeen waa gaar. cishqigii iyo jacaylkii baynu ka hadlaynaa, halkaasaa lala kala maray. aan u imaado qodobka saddexaad oo ah calaamadan jacaylka ama loofka loo adeegsadaa, halka ay kasoo jeedo iyo waxay tahay. runtii haddaad si fiican u dhegaysatana maanta dabadeed message dambe diri maysid oo calaamadaasi la socoto. calaamad kastoo adduunyada la qaataa meel bayna kasoo jeedaa, asal iyo taariikhna way leedahay. calaamad kasta oo maanta adduunyada la adeegsadaa, calaamadani waxay kasoo jeedaa ama ay ka timid naag sixiroolad ah ayaa jiri jirtay quruumihii hore oo dhulka ciraaq boqortooye marka ahayd oo boqorad ka ahayd oo ka talin jirtay. naagtaasi magacyo badan baa loo kala yaqaanaa. kiristanku magac bay u yaqaanaan, carabtu magac bay u taqaanaa, qoloba magac bay u yaqaanaan. naagtaa magacyadeeda ama halkudhigyada loo yaqaano naagtaasi horta waxay ahayd, intaanan halkudhigyada gelin, naagtu naag aad u qurux badan bay ahayd. ragga adduunyada soo maray waxa ugu qurux badnaa sida kitaabka qur-aanku sheegay nebi yuusuf calayhi salaam. naagaha adduunyada soo maray ama dumarka adduunyada soo marayna waxaa ugu qurux badnay naagtan. naagtani waxayd naag saaxiroolada. magaceega waxaa la odhan jiray aniina ama inaana waa laatiin ahaan. afka carbeed waxaa loo yaqaanaa cashtaar, waa ta ay marka dambe kristanku ay ka dhigeen starta ay ka dhigeen cashtaar oo cayna cashtaar. haddaad google-ka ku qorto ama youtube-ka lafteeda, cashtaar aalihat ljinsi walcishqi waliqwaa, intaasaa la yidhahdaa afka carbeed. ama waxaa kaloo loo yaqaanaa aalihat lcishqi alaxmar, ilaahadda jacaylka gaduudan ama ilaahadda jacaylka cas, labadaaba oo la yidhahdaa. marka taariikhdeeda google-ka youtube-ka waad ka heli kartaan, google-ka waad ka baari kartaan. naagtaasi gabadhaasi ahayd. marka waxaa jirtay gabadhaasi gabadh aada u qurux badan bay ahayd, saaxirooladna ah. dad badan iyo culummayaan odhane hilmaan hadal kuma jiraya, qaar badanba saaxiroolayaal badan bay sixirka bartay. sixirkii markii ay bartay gabadhii waadigii dambe way geeriyootay. gabadh aada u qurux badanna way ahayd. waxay yidhaahdeen horta gabadha waxay yidhaahdeen cafwan in yar iga raalli ahaada, waan idiin soo sheeka dhaafay bay soomaalida odhan jirtay. gabadhaas waxay samaysatay macbad lagu caabudo iyada oo dadka isku galmoonaya ay yimaadaan. qofkii caruur medhalays noqda yimaado si looga barakaysto. meesha jinsiga iyo galmada lagu sameeyo waayo sida magaca ka muuqata waxaa loo yaqaana cashtaar ilaahat ljinsi walcishqi waliqwaa. marka meeshaasi laysugu imanayo waa meel macbad u ah iyada oo iyada lagu caabudi jiray. gabadhii markii ay dhimatay dadkii waxaan ku raacsanaa ee kuna taageersanaa fisqigana ku samayn jiray waxay yidhahdeen gabadhii aynu xasuus ka samayno. xasuustii markii laysku waafaqay in xasuus laga sameeyo, waagaa picture iyo sawir ma jirin, waxaa laga samayn jiray sanam shakligeegii u eg ama qaabkeegii u eg. sanamkii markii la qoray, sanamkii wuu nin farshaxano sanam qorista yaqaana loo yeedhay, sanamkii baa la sameeyey. waa iyadii halkaa taagan baa laga dhigay, iyadii baa lagu xasuusan jiray. waxoogaa dadkii iyada yaqaanay waxay waxoogaa saluugeen quruxda dumarka, barida waxoogaa baridii sanamka ee dee laga waday lalahaa waa cashtaar ayuu dadkii saluugeen yidheen gabadhu intii way ka bari weyneed. kadib waxaa la sameeyey waxay dhahan barideedii dee waa runo way yar tahay baa la yidhi tan aad samaysana sanamka ka qortay laakiin bari weyn baa loo baahan yahay. waa tan maanta ay dhahdaan ruux heblaayo halkaa dhaqaaji ay qiimaha u samaynayaan halkii ka timid baan idiin sheegaya ujeedahaan. yacni bari dee qiimo malo baridu waa bari un oo lagu fadhiisano mid walba. laakiinse kadib marka shay la sameynayo cabir baa lagu sameeyaa. si cabirka looga qaato ayaa sidaa loo cabiray qaabka. maanta loofka maxaa loo yaqaanaa? sidaasaa loofka loo yaqaanaa maanta, ama qaabkaasi soo maaha. qaabkaasi baa loofka loo yaqaanaa. sidaa u rog. sidaa marka loo rogo, loofkiisa ahaa markaan sidaa u rogo waxaa samaysmaya qaab noocaasa oo ah labadan dhinac ee kuusan waa baryihii, dhexdana way iskaga keeneen. baryihii anina ayaa markaa abuurmaya. markaa kadib qaabkii bay soo qaadeen, dhagax weyn bay ka qoreen, dhoobay dhinacyada kaga nabeen, kadib qaabkaasi u sameeyeen. barida gabadhaasi aniina ama inaana ama cashtaar ilaahat lcishqi alaxmar ay yidhaahdeen barideedii weeyaan. horto waan isla fahnay baan filayaa intaa. haddaba waxay noogu xigtaa baridani
waxay yidhahdeen waa midabkii qalbiga erey qalbi la yidhaha bay soo saareen oo ah love ama waxaan jeeda the heart alqalb afka soomaaligana waa wadne wadnaha iyo shaqo iskuma laha calaamadan maanta ay jacaylka u qaateen wadnuhu qaab kale u samaysayo gacan saa u duuban buu eegyahay wadnuhu haddaba waxay noogu xigtaa midabka casaanka halkuu ka yimid midabkan cas ee uu ka yimid waxay yidhaahdeen waxa weeyaan markii ay qolada kristanka ahay qaateen ee inaana cashtaar ay star ula baxeen ayaa waxay yidhaahdeen nebi ciise calayhi salaam waa kuwa kristanku sheegtay in ay dileen oo yidhahdeen waan salbinay waan dilnay waxay yidhahdeen fallaadh baan ku dilnay fallaadhii lagu dilay loofka waxaad aragtay soo maaha fallaadh saa inta u dhex gasho 3 dhibcoodoo dhiigina ka dhacayaan fallaadh baanu dilnay ku dilnay bay yidhahdeen nebi ciise calayhi salaam waxna may dilin qur-aanku sidii ilahay ku sheegana fowqa 7 samaawaad buu joogaa ilaahay baana soo dejin doona xilliga ugu talagalo waxay yidhahdeen markaa waa fallaadhii aan ku dilnay ciise oo wadnihiisii gashay oo ciise wadnihiisii daloolisay waa taas yidhahdeen fallaadhu casaankan loo qaatayna waa dhiiggii ciise bay yidhahdeen xadgudubka nebigaa loo geysanay calayhi salaam halkaasaad soomaaliya ka arkaysaan asalkiisiina haddaad baadhaan taariikhdaasa idiin soo baxaysa intaanaan ku dhaafo calaamadda loofka ama jacaylka loo yaqaan haddaba aan galo ta ugu dambaysa qodobka ugu dambeeya oo runtii aada u xiiso badan dayga 14 maalintan 14aad ee February waxaa loo yaqaanaa maalinta jacaylka adduunka aniguse ka cabdiqani ahaan anigu waxaan u aqaanaa maalinta kala kaca xumaanta baaba jacaylka waanan idiin sababeynaya waana xaqiiqo jirta inaad igu raacdana waa laga yaabaa inaad igu diidaana waa suurtagal maalinta jacaylka adduunka anigu waxaan u aqaanaa maalinta baaba iyo kala kaca adduunka sababtu waa maxay sababtu waxa weeye muruqa laba suul Soomaalidu waxay ku maahmaadaa muruqa laba suul ninbasi ku ah hadduu iyagu yahay maalintii farxadda anigu wuxuu yahay maalintii baaba jacaylka waxaa jiri jiray dhacdo runtii waxaa jira shay qofka bini aadanka ah u wanaagsan iyo isla shaygii oo qofka bini aadanka ku xun muruqa laba suul ninbasi u ah qiso yar baan idinka sheekeynaya oo ujeedadeedana aad ka fahmi doontaan waxa dhacday beri waayada ka mida waxa dhacay nin baa inan jeclaa inanta gurigoogu maalin walba hormaraa inantu waa inan aada u dhowrsoon oo asturan guriga kama soo baxdaba ninkan inantan wuu jeclaaday waxba looma diro dukaankuma kulmaan inantii si alla si uula kulmo wuu waaye inantana ninkan wuu u dhimanaya aad buu u jecelyahay kadib waxaa dhacday in uu maalintii dambe isagoo gurigoogii hormaraya uu roob soo daatay roobkii markuu soo daatay Soomaalidu dhaqan bay lahaayeen guriga ama aqoon idinka dhaxayso ama idinka dhaxaynin nin roob ka soo galay baa tahay cid kasta way ku soo dhaweynaysaa ninkii daf buu gurigii yiri markuu galay aduu inantii de la hadalo hoos wax ugu sheego kulu nin wax jecel si uu wax ku gudbiyo ma waayo marka ninkii maahmaah baa laga dhaxlay ah meel aan rabay roob ma igu eriye oo qodob soo maaha waanad wada haysantaa mid kale hadaba iftiiminaya oo isla roobkaasa oo roob kala kiciyay waxa dhacday waayada kamida Soomaalidu reer guuraa iyo xoolo dhaqato iyo geel jiri u badnaayeen wiilal ama inamo geel wada oo geelay ayaa reeraha Soomaaliyeed kamida soo agdegay reerkiiba geeli ku ag hayeen geel iyo reerkan waxoogaa wala kala fogeyn jiray iyagoo geeli halka ku haya gabadhana waxay raacdaa ari ninkana geelu raaca waa geel jire aduu kayntaas la isku arkaa waa la isbarbartay waxoogaa inantii ninkii aad buu jeclaatay ninka jacayl saa u sii badan ma gelin kadib waxa dhacday in inantii in ninkii lagu yiraahdo meel heblaayo ayuu roob ka daay meel la yiraahdo Reydal Khaatumo deegaanka magaciisa aan sheego Reydal Khaatumo roob ka daay marka geeliba waxa loo raray naqi waa roob meel fog ka halac yiri oo hilaaciisi ay arkeen ayaa warkii ka yimid way naqraaceen marka iyadoon ogeyn ayaa geeli guuray inantii ninkii way weeday maalmay weeday kadib markii weeday waxoogaa jacayl way celin kari weeday way xajin kari weeday way adkeysan kari weeday dad bay weydiisay habli hore aad bay u xishood badnaayeen dad bay ku tinay wiilashii geeleydaha maxaa ku dhacay ayaantan iyo maalmahan maan arkine kadib waxa loo sheegay inay roobkii Reydal Khaatumo ka daay ay halka u guureen inantii aad bay u yaabtay mahba iyadana laga qoray halku dhig dhaxal reeb noqday inantii waxay tiri roobkii ka daay Reydal Khaatumo lagu mareeyay wuuna kala raray
laguma reeye wuuna kala raray roobkii ka da-ay reedal khaatuma bay tidhi laguma reeye wuuna kala raray maxay uga jeedaa markaa inan taasi roobkaas wuu kala kiciyey bal hadda u fiirso muruqa laba sulninba si u ah kii kalena muxuu lahaa meelaan rabay roob ma igu ergi waa isla roobkii markaa valentine daygan ay sheegayaan aniga waa maalintii kala kaca jacaylka iyagana waa u jacayl waayo sababtan saa ulaya waa maxay maalintaa roobkaasi da-ay inanta kala kiciyey waxayd 14 February maxaa daliile ama aad caddayn u haysaabaa la odhan karaa soo maha caddayntan u hayan idiin sheegaya anigu waxaan ku caqliyeystay bisha Ramadaan oo soo gasha bisha 12 ee December bisha 12 ee December oo Ramadaan noo soo gasho ayaan anigu horta ku caqliyeystay ilaa intaa ka dambeysay aan caqliyeystay Ramadaan way soo guureysay bisha 9aad ta 8aad ta 7aad ta 6aad ta 5aad imikana waaba ta 4aad oo way soo socotaa bisha Ramadaan marka waqtiga wuu isriixa biluhu way isriixan sanadadu way isriixan marka ay muddo gaadhaba way isriixan maanta 14 February Soomaalida gugeygu wuxuu qortaa imika inta badan waayadan dambe 21 bisha March bisha 3aad 21 ayaa wixii ka dambeeyay Google la suga laakiin si waaga maahdani qormaysay waxay 14 February oo xilligaas uu gudii jiray waayo waqtiga isriixay imika wax badan ba ismay riixin maxaa u dhaxeeya 14 February iyo 21 bisha 3aad oo guya oo maanta xilli sanadahan dambe ku jirno xilligaas ugu gudaa marka anigu saan aaminsanahay 14 February waa maalintii inantaasi jacaylkii ka baabay maalinta jacaylka baabiisan waa qarnaa tan waxaan u aqaanaa iyaguna waxay doonaan ha u yaqaanaan laakiin se way tollaay waxaan leeyahay maalinta cilmi boundary day Soomaaliya xusa inta Valentine day xusaysan oo nabiga ilaahay aflagaadada loo geystay leeyahay waanu dilnay ad WhatsApp ku direysaan ee Facebook iyo Twitter isugu direysaan kow waa baradii saaxiiruleyda dirteen waxa dirteen nabi Ciise aflagaadadii loo geystay falaadii lagu dilay baa leeyahay waa taa oo adireysa saddex Valentine la yiraahdo xusaysa afar man si wadaade haddaan si wadaade barnaamijka aad buu inoogu dheeraanaya dhamaantiin aad iyo aad baan idin salaamaya halka dagala socotaan waa Cabaasa channel kulanti wanaagsan tan iyo sheekadii noo xigta waxaan idinkaga tagayaa anigoo Cabdiqani Sheekh Xasan Axmed AQ sidaas iyo nabadgelyada